waa sheeko ka dhacday Kunduz, waqooyiga Afghanistan. Niloufar Ayyubi oo ah 23 jir ayaa weli xasuusata dhacdo naxdin leh tan iyo yaraanteedii. Iyadoo 4 jir ayaa waxaa soo weeraray nin u hanjabay iyada iyo qoyskeeda, taasoo keentay in aabaheed uu qaato tallaabo adag oo uu ku ilaalinayo. Xilligii gabdhaha aadka loo xadidi jiray ee xukunka Taliban laga soo bilaabo 1996 ilaa 2001, Niloufar aabaheed waxa uu qaatay go'aan adag oo ah inuu timaha ka xiro oo uu ugu labiso sidii wiil si uu uga ilaaliyo waxyeello kale inay soo gaarto. Tallaabadan ayaa u ogolaatay Niloufar inay carruurnimadeeda soo qaadato iyadoo ka madax bannaan qaar ka mid ah xayiraadaha lagu soo rogay hablaha xilligaas oo ay xukunka hayeen Taliban. Inkastoo ay jireen cadaadis bulsho, aabaheed waxa uu ku dhiirigeliyey inay ku noolaato nolol madax bannaan oo aan xadidnayn. Niloufar waxay si kal iyo laaba u xasuusataa inay aabaheed u raaci jirtay tartamada ciyaaraha iyo ka qaybgalka hawlaha sida caadiga loogu talagalay wiilasha, taasoo ka duwaneyd walaalaheeda kale ee gabdhaha ah oo uu sharciga Taliban u diiday inay sidaas sameeyaan.